howla aniga ii gooni ah iyo familkayga iyo adeeraday waan u imid hadda koorna idima sheegano idima dhihin marna idima dhihin adeeraday iyo familkii iyo wax saas ah laakiin hadda waan ku khasbanahayo waa dadka meesha ay keenay waa dadka programyada ii wado howlaha ii wadaana waa howlo ka aniga mustaqbalkii الله وبركاته كسر دوّا ميشني ومش عن وضعنا هين وجنال كمدن حسين وهالك عيني جلس وهالله وركي هرا ورسول دف ما أنت وحني هيا شيء فرحة له وحلا دودونا هي شرم باي هالكو مري هالكو تجي وكبح حي سوماليا ودكو تجي قاربة بين شيء قاربة لها كندو تجي قاربة إنك صانع فيديو جيجي هراء عنكو شجنا إنه نقطرك كإيمان يسد رددنا عن كأرجني كومنتياش أيوه حتى تصوري مركان آخر سنة أيوه آراء وضد تصور بدنين عن أقعدنا نكاسي إنه تركوا كإيمان أيوه نكاسي تركيا مو إيمانين وحجوجا وضن كاليرادو أيوه يمدي زامبيا وضن كاليرادو أنت كسكو محاكر هذا أنت كسكو إيربارك مركو كبحاي وحان كومنتيga qaar hablaan hablo iyo inamo adu dad baa noo soo dhigay commentiga ina maxaan ku raaday meeshuu ka baxay ay garow ahayd anaguna markii waan isqabanay oo waxaan niri waa garow wuxuu ka baxay iminkii hadana waxaan leenahay asxaabta boqolkiiba boqol oo jecelnahay waan isa saxnay hadaan khaldanayn oo niri international airport aad ayuu ka baxay hadaan waan isa saxnay wuxuu ka baxay niku airportka ku yaala caasimadda Puntland ee Garowe iminkii hadana hadal badan haan ma buuxshay iniga iyo aniga iyo Sharma Boy bahan daawano iyo halku baa joogtaan salaanta islaamka assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib ma sha Allah alxamdulillah safarkeygii waan tagay hadda waxaan joogaa dalka Zambia waliba caasimadii oo Lusaka aan joogaa si qurux badan waa la ii soo dhaweeyay Soomaali weyn iyo dhamaan qaasatan eheladii baa meesha ugu tagay familkayga marka dad badan oo isla wareegayeen meesha aan aaday inta badan dad badan baan ogeyn anigu waxaan joogaa dalka Zambia oo aan ku suganahay oo dal shidan ah ma sha Allah waxaan rabay inaan ka hadlo oo muhiim ah aan rabay arrinka aan u imaaday magaalada waxaan u imid horta aniga familkii eheladayda oo aan u imid arrimo aniga qaas ah marka fan laga tago oo naqsad ahaan aniga qaas Sharmaaka tagay Sharmaarke ama Sharma Boy soo taqaanaan wadanka la yiraahdo Zambia caasimadiisa Lusaka jooga maxaan ku raaday wuxuu yiri waxaan u imid arrimo aniga khaas iyo kuwa fahmay meesha si fiican baa lagu soo dhaweeyay waana nabad tagay ayuu yiri halka ay kala soconaysan Sharma Boy Zambia ayuu jooga caasimada Lusaka ayuu jooga maxaan ku raaday hambalyo waan leenahay cadawgaagu hajabo ayaan leenahay Sharma Boy markasta anagu waan ku garab taaganahay waxaan nahay gamcahaagii midig ayaan nahan leenahay Sharma Boy waxba yaan hadal inagu badbadinin Sharma Boy hayno si wado af jooga looma adeega la yiri Sharma Boy aan dhageysanay laakiinse dad baa lahaa youtuberada qaar ba ka maqlay airportka markii la sii dhaweynayay airportka Garowe marka uu city ka duulayay saaxiibkii oo maslax miday lama soo beeraadeen marka way iskhilaafeen beeray waxba kama jiraan iskhilaafka ay beenta ay dadku sheegay waxba kama jiraan maslax mideeye sidii uu wali saaxiibooyin iyo Sharma Boy asxaabtiisa uu hambalyeeyay una soo laami doona Lusaka una jooga iminkii haadana Sharma Boy ha inoo wado meel walba ay joogaan ee dunida kaga sugan yihiin dalka Zambia in aanan u imaan inaan wax barnaamij ama aan fan wax ku saabsan aan ku qabtaa ama showyo oo kaleeto ama barnaamij show oo kale inaan ku qabto uma imaanin arrimo aniga ii qaas ah oo aan u imid familkayga u imid waa arrimo ay qaas ii wadaan insha Allah meeshaan email ka sii wacan insha Allah waan gaari doonaa team Sharma Boy waxaan jeclahay team taana dhamaan inay nala socdaan waxa idin leeyahay niman yahow waxa ogaataan oo alaabta ka baxstaan oo aad ku jiiftaan oo aad ku soo toostaan wax barnaamij la dhaho iyo wax show la dhaho iyo wax fan ku saabsan haba yaraatee in aan u imaanin dalka Zambia ee aan u imid arrimo aniga ii qaas ah iyo howla aniga ii gooni ah iyo familkayga iyo adeeraday waan u imid hadda koorna idima sheegano idima dhihin marna idima dhihin adeeraday iyo familkii wax saas ah laakiin hadda waan ku khasbanahayo waa dadka meesha ay keenay waa dadka programyada ii wado howlaha ii wadaana waa howlo ka aniga mustaqbalkayga ka dhana oo aniga ii gaar ah marka waxaan u sheegayaa faniskayga asxaabteyda hadalka aan ku sii dheereynin muhiimadda aan rabo videoga inaan uga hadlo wuxuu ahaa in aan aniga wax show la dhaho aan Zambia ku qabanaynin kuna qaban doonin
haddana kuma qabanayo weligayna kuma qaban doono macnaha umaba imaaninbo Zambia waxaa u imid arrimo aniga ii qaas ay mustaqbalkayga arrimahayga iyo familkayga waana idin salaamayaa dhammaan inta safarkayga ogeed iyo inta aanan ogeyn inta dhammaantooda waa salaamayaa Soomaali Maxamed waxaa idin leeyahay hayee hadda iyo wax cusub waad maqasheen Sharmaboy Zambia wuxuu u joogaa familkiisa u tagay iyo arrimo isaga u khaasa iyo adeeradii iyo uu tagay intaas ayaan barnaamij kusoo gabagabaneynaa haddii aan kugu culusnahay adiguna nagu cusub tahay subscribe-ka walaal na gaarsii halkii waxaan noo ballana kunka haddaad subscribe-ka gaarsiisaan ana inaan madaxa mooleynayo ayaanta dambe idin soo horfariisin doono anigoo bilaatimo ah sidaas iyo nabadgeliyo nooli kulantay bye bye baan ku leenahay Sharmaboy